بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خيارتا يفهميس اللغة يدوي وسلامتهم الله يدين بركيه ورقدان waxaan ka soo dhex saaray saldhigii hore ee booliiska ee degmada ayl waa sartii daawad ee daraawiishta laga dhaxlay waa sideedii waxaan halkan ku soo saaray warqad ay ku taal 1975 baa waxa soo saaray taliska booliiska ee muqdisho ama xamar ama caasimadii dalka waxa ku yaal nin magaciisa aanan xusayn ninkaas wuxuu ka shaqayn jiray warshada saamaha ee xamar ninkaas uu soo fikaday wuxuu la fikaday lacag meesha ku taal oo dhan 26,600 oo shilin Soomaaliya waxa taliska booliiska ee degmada tan la soo ogeysiinaya iyadoo la amrayo laga soo amrayo taliskii guud ee muqdisho ee Soomaaliya ninkaas in la qabto meel la joogaba in loo diyaar garoobo waxa si gaar ah loo adkeynayaa kelmadda la adeegsaday ee ciidamada jooga dhulka ku teedsan xuduud beenaadka kelmadaasu waa ay soo jiidatay waxaynu aragnaa maanta marka ninkan waxa loo daba joogaa 26,000 oo uu kala fikaday meel mu'assasada ama masnac uu ka shaqayn jiray maanta marka badihii iyo dekedihii iyo berrigii iyo meel walba ninkii gatay oo dalaalay baa soo taagan oo soo gagabaya oo la qaban waayo maari loo waayo ina jiiraya Soomaaliya qiiro yeesha oo damiir yeesha oo sida isu dhaama oo muxuu ahaytay xasaasiyadiina dareen iyo wadaniyadiina kor u qaada ilaah baan idinku dhaarshay 75 ninka 26 kala soo fikaday meel masnac oo gabana oo degmadii Soomaaliya ugu dambeysay warqadaheeda ay ku waan yihiin oo hadda yaaliin oo caynkaas iyo maanta meesha wax marayaan iyo sida dulaaladu wax u wadaan iyo dalku suu yahay bal isbarbar dhig ma isleedahay ilaah baan kugu dhaariyay ninka Soomaaliga ah oo qiirada iyo damiirku ku jiro toqon damiir la waa la hadlimaayo anigu waxaas uu qiimo ma leh ninkaasoo ma isleedahay dalkaagu maanta saan ku noqonaya ma is oran lahayd ilaah baan kugu dhaariyay aad baa mahadsantiin warqadii waa taas saasay ku taal waa ta taariikhdeedii halkaas ka wada akhrisanaysaan idinkoo dhama hadaad been u maleysaan marka ma sha Allah walaalayaal sida halaysu dhaamo Soomaaliyeey sida halaysu dhaamo oo dadka dibadaha ka soo noqonaya oo qaarkood soo maaragtay waraabayaalka soo noqdeen anagoo nin aan magacaabayn dadka caynkaas walaalayaal dalka sida loo dhaamo iyo dadka kaleba dadka xun iyo dadka fiican labadaba way ku jiraan way ka buuxaan marka Soomaalida qiimaha leh sida isu dhaama oo dalkiina sida u dhaama oo muxuu ahaaytay wax iska bedela oo waa la qaldamay la toobad keeno وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأدمها السنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته